إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وبعد sidaa walaalaawda arkaysaan maanta axibada aan jecel lahay ee muslimiinta ah waxaanu ku kulmaynaa maanta waa kelmad halkudheg aan uga dhigayno iskarabtaag iyo la nafqaybsi walaalo muslimiina oo dhibaata adduunyo maaliyi ka soo gaadhay xaadiskii gubashada markaa suuqii Hargeysa ku yaalay ee waaheen waxaan rabnaa كلمة ميشن نوغا بناني أولا تسليو قلبي صلاحيد إني مركا النقطة يلا بقبوتشن إيني كد داران مركاسي موقفك إلهي سبحانه وتعالى رسولك سنوشي جيمانتو وكري يدعى عامة ويبو أي مسلمين تلو داقيان runtii waxaan halkan ku hayaa duco aan ugu talagalay munaasabada aan imika ka hadlayo haddii ilaahay uu idmo oo ku baxaysa suugaanta Soomaaliyeed waa gabay min awwalihi ila aakhirihi bi akmalihi uu yahay duco qabla dalik waxa aan leeyahay anigoo si gaar ah ugu jeeda umada walaalaha ee ku dhibaataysan xaadisadii gubashada suuqa markaasi Hargeysa Allahumma ajirhum fi musibatihim wa akhlif lahum khayran minha اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا واسعا أسأل الله العظيم أن يعديهم الصبر والاحتساب والسداد والاستقامة والثبات على الإسلام بعد ذلك الله تبارك وتعالى يمتحن عباده بالبلاء وهو القائل ولنبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولا ليال إله تبارك وتعالى وحاو الدومدي سكو ابتلينا يا أما كو امتحاما يا نوع كمدا نوعية كمدا مصائب كأدوية أوكل الدون وانا إله ربي إساقوا إنقوله waxaan idinku ibtileynaa isagoo cisiga iyo jalaalkiisa ku dhaaranaya oo arinta inoo xaqiijinaya waxaanu idinku imtixaamaynaa shay wax weyn ma aha waxay adoomadu galabsadeen oo dhan ilaahay kuma imtixaamo waxaan ilaahay idinku imtixaaminaa shay yar oo kooban oo kamid ah cabsida iyo gaajada cabsidu waxay ka timaadaa cadowga noocyadiisa col cad iyo col madow bay Soomaalidu oran jirtay col daba iyo col daada iyo col bini'aadan intaba uu noqdaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala adoomada waa ku cabsi geliyaa gaajo faqri abaar cudka iyo xoolaha oo ka baxa iyadana ilaahay waa ku cabsi geliyaa adoomada waana ku imtixaaba waxa kale ilaahay uu sheegay inuu ku imtixaamayo shay kamid ah isaguna nusqaan maalku isdhimo oo xooluhu markaa ka baxaan kulliyada ma bacd anfunafaha oo ku timaada dil iyo layn iyo geeri iyo xanuun iyo sahal iyo wax la mid ah iyadoo ay markaas yimaadaan markaas nabadihii dhulka ka soo baxayay aafa ku dhacdo ay baaqdaan ay ba'aan waxa soo dhan ilaahay wuxuu ka dhigay ibtilaa iyo imtixaan shayga la yiraahdo cabsida iyo shayga la yiraahdo gaajada ummadii markaa reer Maka waqtigii rasuulka laga soo saaray kaleey salaatu wasalaam laba goorba cabsida iyo gaajada mar ilaahay waa uu ku imtixaamay shaabugi ciqaabna uu uga dhigay marna ilaahay waa ka furtay oo waa ku galad sheegtay labada inuu ka badbaadiyay waa ka rabbi inagu la falyabudu rabb hada albayt alladhi at'amahu min ju' wa amarahu min khawf wa inay cibaadada u khaalis yeelaan oo cibaadada ay ka qaataan rasuulka loo soo saaray ilaaha quudiyay gaajo ay ku jireen darteed meeshu sarac male wabiyaal malaha laba rixla ilaahay u saaray sida suurada marka aayadani kamid tahay ilaahay uu ku sheegay rabbigaasi waa ka aamin yeelay cabsidii haysay darteed
maka markaa hareeraheeda iyadoo dadka la ikhtidaafaya dad iyo adduunyaba baa iyaga lagu ixtiraamaya xaramka marka alla waa ugu gallad sheegtay mar kaloo ay nicmadii ka kufriyeenna rabbi waxa uu yidhi markaa faadaaqaha allaahu libaasa aljuuci waalkhawf markan ilaahay wuxuu huwiyey huga markaasi gaajada iyo cabsida yacni siday u dhadhamiyeen korka ayuu uga soo baxay gaajada iyo cabsidii kaana libaaska dusha ka daahiroo kale ayuu u noqday haddaba masaa'ibka noocani markay yimaadaan ilaahay uu addoommada ku imtixaamo rabbi waxa uu yidhi wabashir saabiriin kuwa ayaa sabraya ilaahay inoo sheegay kuwa sabrayana cadiyad baa loo ballan qaaday oo rasuulka loogu dhiibay inuu ugu bishaareeyo isagoo aayaadka qur-aanka u marinaya kuwa saabiriinta ee masaa'ibka iyo imtixaanka ku sabra nebi maxamed oo u bishaaree xataa shaygii loogu bishaaraynaya halkan waa la jaray si uu noqdo caam fi dunya wal-aakhira jannada ugu horraysa guul iyo ciwad ilaahay adduunyada uu bixiyo ayaa qayb ka mid noqonaysa haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo sheegayaa kuwa sabray afcaaliyaadka ay sameeyaan dhibaato markay dhacdo caado soomaalida waxa u noqotay cadowgooda inay cararaan cadowgoodu dhibkooda ayuu ku farxaa ee iyaga markay dhibaata gaadho waxa weeyaan uma naxo garabna ma siiyo waxa weeyaan hadduu wax ka soo gaadhaanna waxaa daba taalla markaa naar iyo waxa weeyaan markaa dullinimo iyo inuu markaa halbowlaha ka buuxsado ayaa daba taallaa iyaga laakiin kuwan ilaahayna waa ammaaneen sabirka lagu arsaaqay caado waxa waa musiiba markay timaado sidatan alladhiina idaa asaabadhum musiibatun qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kuwana ee sabraya lagu cadiyadan markaa sabirka ilaahay siiya kuna abaalmarinaya waa kuwa markay balaayadu timaado geeri iyo musiibo ka sokaysa waxay markaa ku dhawaaqayaan inay yihiin mulki allah iska leeyay sidoo doonana uu ka yeelayo allah bay rumaynayaan iyaguna adoomadiisii inay yihiin allah uu ku tasarrufo waxaanay rumaynayaan ay ku dhawaaqayaan inuu yahay marjic dambe oo loo laabanayo qiyaamaha rabbi la is hortaagayo rabbina adoomada uu abaal marinayo horta waa inaynu caado ka dhigana sidan ilaahay uu inoo sheegay sifadan uu bixiyay dadkan markaa wanaagsan ay leeyihiin dhibaatadu markay xanuunkeedu ku taabto xagga adeegaysaa jihada uu kaaga maqan yahay nasriga iyo gurbadku waa xaggee waxa weeyaan markaasi laa tatadallac ilaa ila asamaa xagga samada eeg rabbi subxaanahu wa tacaala rajee wax ku sug ilaahay hadduu gaal dubbeeyo fooda kuu qabto wuu karaa oo isagoo dullaysan oo rabbi ku mahadsan uu kuu keeno si aanu kuu dullayn waa inaad xagga rabbi aad u jeesato kuwana ee sidan ku dhawaaqaya abaalmarinta ay leeyihiin waxay tahay rabbi waxa uu yidhi ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun kuwana ee sidan ilaahay uu markaa sheegay ku qowlaya markay dhibaatadu timaado waxay yeelanayaan salawaad ilaahay taskiye iyo ammaan ayuu siinaya xaggiisa iyo naxariis buu siinaya ciwad buu ilaahay siinaya dhibkooda alla kabaya aakhira ilaahay darajaynaya waana kuwa xaqiiqa inay hanuuneen Umar bin Khattab baa laga hayaa markuu aayadda fasirayay nicma al-idlaani wa nicma al-alaawa laba dheelitir iyo guradhig labada saddexdana ugu fiican labada dheelitir waxay yihiin calayhim salawaat min rabbihim waraxma ilaahay waxa uu ballan qaaday salawaad iyo naxariis waa labada markaa dheelitir weeyaan dhinacyada awrka markaasi rarka laga dhigo wa ulaa'ika humul muhtaduuna waa dhextaalkii iyo markaasi guradhigi weeyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu daray inay xaqiiq ahaan kuwani ay markaasi hanuuneen dhab ahaan markaasi weeyaan sideedaba rabbi subxaanahu wa tacaala yabtali cibaadahu bisharri walkhayr ilaahay shar iyo khayrkaba caafimaadka sixada iyo cudurtida faqriga iyo gaajada iyo qaninimada iyo hodantinimada intuba waa imtixaan wanabluukum bisharri walkhayri fitna wa ilayna turjacuun rabbi waxa uu leeyahay shar iyo khayrkaba waanu idinku imtixaamayna ibtila darteed baan sidaa u samaynaynaa ilaahay wuxuu xaggayga u soo noqonaysaan annaga idin abaal marinayno oo annaga ayaa markaasi idinku jasaynaynaa walaalayaal qad akhbara nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam an halil mu'min fa inna halu kullu tilka halatay al-mu'min fi sarra wad-dharra khair nabi maxamed wuxuu noo sheegay qofka mu'minka labadiisa qayboodba inay khayr yihiin فقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن
إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له qofka mu'minka arrinkiisu waa la yaab dhinac kasta loo eego waayo waxa arinta uu rasuulku ku cabiray arrintiisa oo dhan dhinac kasta dib iyo khayrba waxay u noqonaysaa wanaag iyo khayr bay u noqonaysaa arrintaasna cidi lama wadaagto oo gaalada iyo munaafiqiintu ma helayaan umana sugna arrintaasi waxaan muuminahay sababtoo ah marka ay u timaado nicmo ilaahay hodantinimo caafiyad nasri cisi darajo adoonku waa uu shukriyaa shukrigna khayr buu dhalaya haddii ilaahay dhibaato qadaro mid adduunyo mid markaa nafeed iyo mid maal iyo mid markaasi dhibaato dhinac kale ka imanaysa adoonkii muuminka markay timaado uu sabraya arrintaana khayr bay u noqonaysaa arrintaa waxaan ugu talagalay qalbi dejin iyo laab qaboojin iyo jihada marka dhibaatadani timaado loo baxayo makhrajku yahay walaalahayga inaan la wadaago waxaan kaloo arrintan ku daraya tanoo kale markay timaado walaalka caafiyada haystaana wuu imtixaamay walaalkiisa dhiban markuu arkayo isaga intaa uu ka badbaaday waxaa laga rabaa walaalaha muslimiinta horta maanta guuldarrada jirtaa waxay tahay caalamul islaami dhaqaale ahaan iyo tiraba waa badan yahay laakiinse waxaa qalbigooda ayaa kala maqan cadow baa la kala hadaafay maanta waxaan maqlayaan arkayaa walaalaheena ku cadiban ee lagu cadaabayo Falastiin markay faryaro sidaa u taagaan ay gaal xagtaan waxa barooranaya markaasi duwalkii maanta islaamka nusradiisa laga fili lahaa ayaa ooyaya oo barooranaya maalinta muslimiinta la dhibaya ama dhibaato ku dhacdana ma xasuusanayaan dhigo umalay arrin hargeysa iska daa inay xasuustaan arrinta Falastiinta alla maanta khabar iyo oday ama inan ku geeriyooday Talabiid ayaa kala qiimo weyn oo u barooranayaan waa dadkaynu ka sugayna nasrada gaal halkan inaga dhig laakiin inaynu isku tashano maanayahay Soomaali Ilaahay subxaanahu wa ta'ala geeska wada dhigay gacalna isaga dhigay jinsi waaxidana ka dhigay maanta markastoo dhibaato timaadana Ilaahay wuxuu ina barayaa gacalkeena wuxuuna inooga digayaa cadowgeena yaa horta gacal inoo ahaa yaad u abtirsataa isirkaan ayuu galaa waa kuwa maanta jawaabta koowaad aad ka helayso ee aad maanta u mahadnaqayso ee aad leedahay walaalaha iyaga noo soo gurmaday way mahadsan yihiin waxba isbihinta iyo dafiraadu waxba ma tarto waxaa wanaagsan xaqiiqada biyo kama dhibcaanka inaan u soo noqonno arrintu gomadeennay taallaa nasrigeenna iyo cisigeenna meel fog ka eegi mayno gurmadka hargeysay xagga maalka maanta meel fog yaan laga raadinin waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta gaar ahaan geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ha isku tashadaan walaalahood waa garab istaageene wali laakiinse waxaan rabaa cudud midaysan oo gobol loo kala harin in la isku garab taago tilka bitilka ay noqoto la baro walaalku hadduu garan waayo maalintiisa walaalka dhibaataysan uu gacanta taago in isaga la baro si isna berri ugu dhiirado ayaan doonaynaa hal xadiis haddaan idin xasuusiyo waa xadiisun thaabit can nabiy sallallahu alayhi wasallam akhrajahu ibn abi dunya وخرجه الألباني في صحيح الجامع وهو حديث حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تضرد عنه جوعا لأن أمشي مع أخ المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد الشهر إلى آخر الحديث رسولك وحر الضومضة إلهي وجعل يهي كوغو واحترك بدن لا الضومضة يا الضومضة النفعية يا واحترك الدين يا أدو يبقاس أعمال الضومضة السميان إلهي قد واذا أن وجعل يهي عز وجل وفرحان aad markaa walaalka qalbigiisa geliso isagoo qulubsan amaba aad ka faydo kurbad musiiba oo ku dhagan amaba deyn culus uu iska kicin kari waaye aad ka markaa fujiso ama gaajiyo macaluul aad ka caariso ka furato oo uu ku sugnaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaan la rafiiqan raaco walaalkay oo xaaje iyo dan uu leeyahay aan u suura geliyaan la qabtaa baa xaggayga looga jacayl badan yahay hal bila
oo hadday doonto rabadaana oo aan masaajidka ku ictikaafo masaajidkii rasuulka ee salaadiisu ay ka khayr badan tahay 1000 salaadood u dhiganto salaadaha masaajidka kale lagu tukado oo aan isaga ku ictikaafi lahaa bisha ayaan ka jecelahay walaalkay xaaji kaliya tu adduunyada leeyahay la soo qabto marka walaaluhu iyagoo xadiiska rasuulka qaaciida ka dhiganaya walaalahood waxaan rabnaa inay markaa maanta u muujiyaan gurmad walaalnimo walaaluhuna ay sadiqaan maanta gurmadka sugaya cidda walaalka waa ee runta ah ee la iska dhaafo dhalanteedka iyo dhalan habaabista markaas la iska dhaafo walaalayaal waxa aan doonayaa inaan markaa duco gabay ducaa soo diro oo ducadana waa la wada leeyahay waxaan rabaa inaad aamiin tidhaahdaan bishii ramadaan baynu ku jirnaa shahru ramadaan alladii unsila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wa bayinaatin min alhuda walfurqaan faman shahida minkum shahra falyasumhu soomkiisa waajiba wa bishii qur'aanka wa bish raxmadda la soo dejiyo dembi dhaafka ilaahay waasiyo jannadu furan tahay farashka alla bixiyo nafaxaadka raxmaadka ilaahay ay furan yihiin gala masaajida ku cibaadaysta ducaysta intay musiibada haleeshay inta ducaynaysa ilaahay uu aqbalaya igana qabta aamiinna dhaha ducada maanta aan idin wado tawassul mashruucana wadata aadan suna walaalkin waxa uu idin leeyahay kaliya laab idin jecel dhibaatadiinu ay tahay dhibkiisa farxadiinu ay tahay farxadiisa murugadiinu ay tahay murugadiisa jasadkiisu hadduu idinka maqayna ruuxdiisu iyo qalbigiisu idin la joogo waxa uu idin leeyahay isagoo markaa idin ducaynaya sida tan buu idin soo diraya الله يو عرشك دوشيس يعلوك جوكتو الله يو صفع يمن يئيس ماديك كوعانا الله يو عالم تري انتو عابد قرنا يو الله يو علاقة الشرعية وسيلة عيب لبان مرأي الله يو عيرس أدار نوعهم كعسكنا ياي الله يو صعاوي الضومد ويعدبيهين الله يو صعاوي الضومد ويعدبيهين الله يو هنقو عقاب عاصقا بدنه الله يو علوشا بوكتو لا تعاوق با قلايه الله يو عافماد نسي عملك الناصوبي الله يو قلوبك الله عداد عاقبا إيمانه الله يو دراويش عريسني كوفي الواتي عرها قويانه الله يو ما أنتنا الله يوم أنت عردان نوكعي الرقاع عقي جهاد كيه الله يوم عداوها نود الليه انتراطها يا الله يوم قال كنا عابي عدد النوشيكتي الله يوم عريدك نبد لقوا عشين واي الله يوم عاريوبني من سدني والعبي روايه الله يوم عاريوبني من سدني والعبي روايه الله يوم ننعي لبان هو عركان سروا ايقاي الله يوم عقيدو صافي نقول عيسى يعلنك توحيدك الله يو عرب يعدد إسلامي ده عالم كويدل الله يو دين تنوعين تيو عردنا يو باقت الله يو علماء عين سلوني عيمت كإلالي الله يو مدحد عدلك صورتيه إذا نقول الله يو عبقري عينان كنوها يو عالم نقول دوشي الله يو عابد الصليب كيو علمان يعرق النودافي الله يو علنكي هجبو منكي عيد قضنايا الله يو على لاف صندرير علف كمودايا الله يو علماء السوق يعبد الشيطانك الله يو عادقاتها يعرها النولوغين الله يو عبرق يهودين عرف لعنك يلعيندو يهي الله يو عذاب نقنجيه يا عيد لدلندولو الله يو عود بان نغن بخيو مال عامرو بدنه الله يو عاول نقعانا لغو دمبيو توبه نغو عيمي الله يو ادا عبي عركان ودب لهين يا عرده هوستاله الله يو علقه ادا نغا ابوريو هيرب عيدام سارن الله يو على البهن يهون قري ادا عيمسكا و قري الله يو عسيس باته يا عادل ديق بدنه الله يو ضرورها لغا عبيو عودك نو ضرري الله يو مصيبة صاع لقن نقعشي ميسو الله يو عرض هذا نقبري عافية هاي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لنا الدين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم أقثنا اللهم أقثنا اللهم أقثنا
قيثا مقيثا هنيئا مريئا سحا دبقا مجللا دائما إلى قدر الحاجة. اللهم أسق العباد والبلاد وانشر رحمتك وحي بلدك الميت. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وبالله تعالى توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.